wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan wararkeena galabnimada waxaa kamid ah madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan oo laga celiyay airportka magaalada Muqdisho kadib markii la sheegay in isagoo musharax xildhibaan ah uu hadana isku dayay inuu qalalaasay iyo buuq ka abuuro gudaha magaalada Baydhabo madaxweynaha maamulkaasi oo ka codsaday madaxda ugu sareysa ee gobolka Banaadir in xabsiga loo taxabo Shariif Xasan maadaama uusan hadda wax xasaanad aan lahayn sidoo kale maxaa ka jira in ciidamo uu Shariif Xasan hadda ku aruurinayo qaybo kamid ah magaalada Baydhabo iyo sidoo kale ciidamada magaaladaasi oo ku raad jooga dagaal qarkan u saaran inuu ka dhaco qaybo kamid ah magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed barnaamijkeena aad ku daawan doontaan mucaaradka oo lagu bahdilay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug qaybta Galmudug oo doorashada lagu waday in dhawaan ka dhacdo qaar kamid ah siyaasiyiinta ugu saameynta badan ee haweenka ah ee xisbiga nabad iyo nolol oo si cad loo shaaciyay in kulaasta loo xiray wax talil ayaa kamid ah siyaasiyiintaasi laba boqolkiiba in xildhibaanada ku soo baxayaan qoor oo go'aan xasaasi ah ka qaatay qaar kamid ah mucaaradka doonaya in kuraasta ka soo baxaan gobolka Mudug gaar ahaan magaalada Gaalkacyo iyo dhinaca Galmudug dhinaca kale ra'iisul wasaare Roble oo isna dhankiisa isku dayay inuu kuraasta doorashada ee magaalada Gaalkacyo gaar ahaan beeshiisa oo isku dayo inuu musuqmaasuqo iyo beesha uu ka dhashay Roble oo ku gacan sayrtay kadib markii uu isku dayay inuu iska horkeena iyaga iyo sidoo kale madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor warbixinteena ayaad ku daawan doontaan halkee ayuu ku dambeeyaa xaaladii ugu dambeeyay ee dagaalkii Russia iyo madaxweynaha dalka Ukraine oo eedeyn dusha uga tuuray qaar kamid ah wadamada ugu awoodda badan ee NATO taageero cusub oo hadda ay helayso iyo sidoo kale dowladda federaalka ee Soomaaliya oo si toos ah ula safartay dowladda Russia sababaha keenay ayaan daawado kula wadaagi doona doorashada magaalada Boosaaso oo ay fadeexooyin badan ka dhasheen baarlamaanka lagu dooranayo boobka uu wada Siciidani iyo sidoo kale xildhibaanada uu soo saaray yihiin sidoo kale qaar kamid ah ayaa lagu eedeeyay inay ka tirsan yihiin sirdoonka dowladda Kenya barnaamijkeena aad ku daawan doontaan qodobada ay kuwa kale oo xiiso badan ayaan daawado kula wadaagi doona haddii ay tahay markii koobaad asoo boqoto channelkeena calanka TV subscribe oo faraga mulaalka si aad u noqdo daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena mahadsanid aan ku bilaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ku sugan magaalada Dooxa ee dalka Qatar ayaa la sheegayaa in maalintii labaad uu kulan xasaasi ah uga socdo dalkaasi isaga iyo madaxda ugu sareysa dalka madaxweyne Farmaajo oo arrimo muhiim ah kala hadlay siyaasiyiinta ugu sareysa dalka ayaa ka codsaday in arrimo muhiim ah oo ay baryahan dhan ka wada hadlayeen la dedejiyo doorashada ayaa la iska wareystay iyadoona ballanqaadyo dhaqaale iyo mid ciidanba intaba loo ballan qaaday madaxweyne Farmaajo haddii uu soo laabto ballanqaadyadaasi ayaa la filayaa in dawladda ay hore ka bilowdo xitaa inta ay doorasho socoto ayaa qaarkood la rajeynayaa in madaxweyne Farmaajo uu shaqooyinkaasi bilaabo haddaba booqashada madaxweynaha ayaa imaanaysa xilli qaar kamid ah dalalka khaliijka ay la safteen mucaaradka iyagoona isku dayayay inay khalalaaso buuq dagaal intaba ay ka kiciyaan gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho qaarkood ayaan isku dayay inay faragelin qaawan ku sameeyaan maamulada qaar Imaaraadka iyo sidoo kale Sacuudi Carabiya iyo dalal kale oo ay ku jirto dowladda Kenya ee dariska aan nahay ayaa wata qaar kamid ah musharaxiinta iyo sidoo kale ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble oo ku magacaaban ra'iisul wasaaraha hadda xukunka haya madaxweyne Farmaajo ayaana ka muuqata inuu garab ka doontay dowladda Qatar maadaama dowladihii intii badnaa ee khaliijka ay doonayaan in Soomaaliya amnigeeda horumarkeeda iyo sidoo kale doorashooyinkeeda ay carqaladeeyaan waxaana laga dhursugayaa waxa madaxweyne Farmaajo safarkiisa kala yimaado dhinaca kale maamulka Koonfur Galbeed ayaa ka joojiyay madaxweynihii hore ee maamulkaasi safar uu ka tagay lahaa magaalada Baydhabo iyadoona ay u cuskadeen sida la sheegay laguna eedeeyay inuu magaalada qas iyo buuq inuu ka sameeyo uu aaday doorashada ayaa dhawaanahanba si habsami ah ugu socotay magaalada Baydhabo iyadoona wax dhawaq ama cabasho ah aysan ka soo yeerin waqtigii ugu dambeeyay Shariif Xasan oo sheegay inuu u tartamayo kursiga Hob 261 ayaa saaka laga joojiyay safar uu ku tagay lahaa halkaasi waxa wararku hadda sheegayaan in ciidamo uu isagu wato ay hadda isku aruursanayaan koonfurta magaalada Baydhabo ee xarunta ku meel gaarka ah ee maamulkaasi madaxweynaha maamulkaasi Cabdicasiis Lafta Gareen ayaa ka codsaday marfish iyo sidoo kale waxa amniga gobolka Banaadir in xabsiga la dhigo madaxweynihii hore ee maamulka Koonfur Galbeed Shariif Xasan Shiqadan Shariif Xasan ayaa lagu eedeeyay inuu ka dambeeyo kacdoon iyo sidoo kale ciidamo hadda isku aruursanaya qaybo kamid ah magaalada Baydhabo maamulka Koonfur Galbeed ayaana ciidamo u diray si loo soo afjaro kooxahaasi abaabulaya falalka guracan ee ka dhanka ah dowladnimada waa sida ay sheegeen qaar kamid ah kuwa ka shaqeeya madaxtooyada maamulka Koonfur Galbeed ee magaalada Baydhabo
xaaladda magaalada Baydhabo ayaa sida la sheegay hadda aad u kacsan iyadoo shacabka iyo beesha Shariif Xasan ay sheegeen inay toos u taageerayaan madaxweyne lafta gareen oo sidoo kale ay ka soo horjeedaan madaxweynihii hore ee maamulkaasi uu doonaya kursigooda inuu si awood ah ku qaato sidoo kalena uu isticmaalo shaqooyin isaga u gaar ah in iyagu doonayaan inay kursigaasi u isticmaalaan wax beesha iyo dadka deegaanka dan ugu jirto 4 sano ee la soo dhaafay waxa ku fadhiyay sida la sheegay wiil uu dhalay Shariif Xasan waxba yaraatay ugu qabtay dadka deegaanka maysan jirin dhinaca kale magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug dhinaca Galmudug waxa ka socota ama lagu wadaa inay ka dhacdo doorashada xildhibaanada ka soo baxaya deegaanadaasi waxa la sheegay maanta siyaasiyiin badan oo mucaarad ah halkaasi kuraas u doontay in laga soo ceeriyay iyagoo bahdiraad iyo wajiga kala kulmay madaxweynaha maamulkaasi Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor oo dhawaan khilaaf soo kala galay asiga madaxweyne Farmaajo ayaa la xaliyay tabashooyin ay kala qabeen waxa uu hadda cagta u saaray siyaasiyiinta mucaaradka ah ee doonaya inay siyaasadda ka soo galaan magaalada Gaalkacyo qaar ka mid ah xildhibaanada mucaaradka uu ku jiro Odawaa iyo sidoo kale kuwa kale oo aad u fara badan oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa lagu wargeliyay inay isaga baxaan magaalada maadaama aan xilligan looga baahnayn shacabkooduna ay diideen madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ayaana siyaasiyiin ka socda nabad iyo nolol u ballan qaaday kuraastaasi wararku waxay sheegayaan maamulka hore intuu sabixin madaxweyne Farmaajo in qadka telefoonka wada hadleen isaga iyo madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor ay isla meel dhigeen siyaasiyiin ka soo baxaya magaalada Gaalkacyo sababta keentay in madaxweyne Farmaajo uu farageliyo doorashooyinka xildhibaanada ayaa lagu sheegay kadib markii maamulada Puntland iyo sidoo kale Jubbaland ay si xoog ah ku soo saarteen xildhibaano iyagu wataan arrintan ayaa loo goleeyahay in xildhibaanadaasi kuwa ka badan ay nabad iyo nolol ku xisaabtamaysay soo saarto kuraasta qaar ayaa si toos ah loo xiray kursi uu u tartami lahaa Al-Cadaala iyo sidoo kale xildhibaankii hore kursiga ku fadhiyay Odawaa ayaa la sheegay in siyaasiyiin nabad iyo nolol wataan oo kaliya ay ku tartami doonaan dhinaca kale Ubax Taliil ayaa la sheegay in ku jirto xildhibaanada ugu horeeya ee Axmed Qoorqoor warqadiisa ugu qoran ee miiska u saaran inuu soo saaro guulaha ay gaarayaan ayayna ka mid tahay nabad iyo nolol dhinaca kale dagaalka Russia iyo u dhaxeeyay Ukraine ayaa ku sii siqaya asbuucii labaad dhamaadkiisa dagaalka oo wali madaafiic iyo hub culus loo adeegsanayo ayuu maanta hadlay madaxweynaha dalka Ukraine Zelensky isagoona sheegay NATO inay u ogolaatay ama uu amar ugu haysto Russia inuu duqeyn ka geysto inta Soomaaliin wax taageero ah kama helin ayuu leeyahay shacabkuna wali way dagaalamayaan walow isna hadda guulo la taaba karaysan ka gaarin dowladda Russia hadaba waxa inooga wararkeena galabnay fadlan daawada hadii ay tahay markii koobaad soo booqata channelkeena Calanka TV subscribe oo faraga markaa si aad noqdo daawadaha koobaad ee barnaamijyadeena